السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga qaaliga aniga waay walaashiina kaltumo kooken waan ii salaamay meel kastoo adduunka aad ka joogtaan kusoo dhawaada janalkeena gacmo furan kusoo dhawaada walaalaheeni hore walaalaheeni cusub kuligiina soo dhawaada walaalahayga qaaliga oo qiimaha badan leh oo sharafta badan leh waa mahadsantiin sida sharafta leh oo markasta ii soo raadinaysiin haddaad i waasaan hadday noqoto messengerka hadday noqoto whatsapp hadday noqoto meel walbo aad markaas aniga iga helaysiin iga soo raadisiin waa mahadsantiin walaalahayga waan igu faraxsanahay aad iyo aad aan u faraxsanahay maadaama ani is dhahay waxaan youtube-ka aad gelinaysid waa wax iska caadi oo easy ah iska gelisaa bis waana ka tagtaa qof ku fiirsata male xataa waxaas iska aaminsanaa laakiin waxaan aaminsanahay hadda inaan dad badan igu xiriyin walaalo oo qiimo badan maanta waxaan ii wadaa bariiskana codsi waaye gabdho badan soo codsadeen oo waqti badan ka qaadanaynin oo qarash badan ka qaadanaynin maantana midkaas aan ii wadaa hilibkayga waa kana hilib ari waaye garab waaye saana la soo gogooye hadda aad rabtid hilib lo ama hilib chicken wixii dooqaaga ku samaysanaysaa hilibkan waa kaas bariiskayga waa kana bariiskan waxaa basmati waxaa ku qoran bacdiisa abu maxamuud bariiska abu maxamuudka waxaa bariis dheer oo noqonaa haddii aad loo qaso laakiin karsiimadiis uma baahna biyo badan oo lagu shubo aad u karisid hadda aad u karisid uu ka jilcaa maasha allah waa bariiska aad u macaan badan yahay hadda waa sii qasanaa inta hawsheeda gudaha u sii galaayo basasha laba xabo u baahanahay haddaad waa ka badsan kartaa basasha markii la badiyo bariiska aad u macaanana suugan waa ka daarta waa isticmaalay daarta waa iska dhaafeen kabsar caleen toon inta rabtid ka isticmaalay toonta xawaaji rudub intaas aan u isticmaalaa hadii kale bariiska madow zaad u ka dhigaa marabo heel haddaad heel shida isticmaalay dhalada waxaan ku soo shubtay xawaaji waaye xawaajiyaashidan waxa waaye xawaajiyaasha oo isku darsan waaye 5 xawaaji ka kooban yihiin dhaladeena waxa ku jira saliid saytuun haddaad saliid cadiye isticmaali kartaa waxaan soo googoosanaa basasha iyo toonta kabsar caleenta iyo waxaan soo shiidanaa xawaajiga markaas kadib waan isku soo laabaneynaa haddaan soo laabtay waa kana hilibkii waan soo dhaqay dabkaygu ii shidan yahay hilibka karistaankiisa waxay nagu qaadanaysaa 1 sac ilaa 1 sac iyo 25 biyaha waxaa u baahan inaan ku shubto 2 litir iyo bar waxaan ku shubanaa 1 qaando cusbe qaandadeena waxa waaye qaandada kasoo roonta marka hilibka wuxuu ka galaa lafaha cusbada markii lagu sii dhex kariyo haddana waxaan ku shubnaa liin dhanaan 1 qaando hadaarta liim caadi isticmaal ama liimada caaga ku jirta waa kana caagani ku jirta liimadeeda xawaajiga mikiskan ku daraa qaandada haafkeeda wax yar kabsar caleen markuu saac ama soo karkaro daboolkiisa saaraysaa markuu saac soo buriyana gees ugu leexinaysaa waxaan isku soo laabaneynaa biyaha markay ku soo haraan 2 koob ama 750 oo mili oo biyo markaas kadib insha Allah noo balan waay kana haddaan soo laabtay waa kana biyihii intaas aan soo hartay intaas aan u baahanahay hilibkuna waa u jeedin biseelo noqday markaas dhan biyo itaabto waaye hilib inta ka badan jileecan ma rabi hadaan geesan u leexinaa birtaawadeedan soo diyaarsanaa hilibkana maxaa rabaa inaan ku soo dubo dab oo forte 5 nambar aan geesa dabkayga waxaa rabaa iyo inuu guduuto oo gubna iga naqanin haddana waxaa rabaa inaan ku shubo 3 qaando oo maraq waxaan rabaa inaan ku shubo wax yar oo xabaaji qaadada shaaha lagu labto haafkeeda camal waaye qiyaasta toontana waa kana
inta rabto aad ku shubanay inta sirista ku shubtay iyo kabsar caleen wax yar hal qaando saliid ah wax yar hilibka oo gudgudina sidoo lafaha uu sii gal xabaajiyaasha oo kulligood is gargaaro hilibkeyga hadda saanaan rabaa ani intaan aan ku ekeysiina guduudkiisa waxaan rabaa inaan ku darsado barbarooni guduud iyo jaalo iyo cagaar aan isku soo gogooyo oo gobol yariis aan kasoo gogoostay adiga waxaa rabtid ku sameyso basashiina waatana idan jeex waayo aan saan usoo gooyo hilibka diyaar oo ii yahay alyuumkana ku xiranaa dabkana waa ka dimiyey haddana waxaan rabaa bariiska howshiisana gudaha usii galo digsigan waxaan ku shubanaa maraqeyga maraqada qaboob waa laakiinse waa soo karkarinaa asigan dabka usii shidaa dabkii waa ii shidan yahay digsigeygana waa kana waxaa rabaa inaad saliid ku shubto saliidana waxaa u baahanahay 5 qaando maadaama hilibka oo dhala saliid 5 qaando ka badan ma rabo maxaa yeelay saliidda ka badanaysa dhow ma la cuni karo bariiska saliidda markay soo kulaatana basashaan ku shubanaa basashay waatana labadeeda xabo qaabkaas aan usoo gogooye hadaad waqti yaray kartaa hilibkana waa kana tuuntana waa kan tuunta wax badan aan ku darsanayaa si aad ugu caraftaa rabaa kabsar caleentiina waa kana tan waxaa rabaa inaan ku shubto xawaaji rudhuubka iyo xawaajiga mikiska basasha markay soo guduuto waxaan ku shubaa bariiska basasha way soo guduudatay bariiskan ku shubaa bariiskayga wax badan aan soo dhaqay nadiif waaye bariiska ana waxaan jeclaa markii la karkarinayo kaleeto aan jeclahay bariiska saan loo shiilaayo kaleeto cayil uu leeyahay iyagoo lagu cayilaa laakiin bariiska markii la kariyo oo dhacaankiisa laga saaro ma lagu cayilo kaas bariiska markaan si fiican u shiilo maraqaan ku shubanaa maraqayga waa kana waxaa waaye 750 mili oo maraq ah ama biyo wixii yarta u isticmaal adiga ama maaji ku darso wixii dooqaaga ah waa kana bariiskeygi biyo dhan waa gursadeen waxaan soo diyaarsaday wax yar sabiib ah oo gacanteeda mugeeda ah intaasaan ku shubanaa waana soo dhaqay sabiibka laakiin suugayan ka iloobay suuga hadda ku shubaa dabkana hal number aan u geeyay suuga hal qaando camal ku darooyaa qaandada cuntada lagu cuno waxaan rabaa caraf fiican inuu yeeshto bariisku wuxuu noqonayaa kaaliska araga ku dhaaf faraha isgoosanaysa macaankiisa maasha Allah haddana waxaan rabaa alyuumkiisa inaan ku xiro waxaan ka maqnaanaa bariiska ilaa 20 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo bis huuritaan leh u rabaa waay kana haddaan soo laabtay bariiskayga waa kana diyaar oo ii yahay bariiskii sabiibkaan rabaan isku qaso wax yar waa kaasa furfur waa kaaliska arag furfurkiisaan ku dhahay maasha Allah cunugiisa ma ka dhargeysid saxankayga waa kana aan ku guro lahay haddaad biyaati wixii dooqaaga ku guro laakiin anaga waxaa waaye hal mar saxankaan dhexda la iska dhiganaa waxaan soo sameystay basal aan soo dubay waaye
haddaad gaduud zaaid kasoo dhig qaleelka soo dhig laakiin ana qaleelka guriga ma laga jeclo saa markay taa laga jecel yahay saasaa laakiin maasha allah macaan markii qaleel zaaid laga dhigo waa kana bataatigeygii aan soo dubtay kalaraan usoo yeelay jaale iyo gaduudaan kasoo dhigay iyo cadaan waa kana gaduudka asan dhexdan gelgelinoyaa sharxaad camal u dhigoyaa hadda waxaan rabaa hilibkii inaan dan saarto haddana waxaan rabaa korkana uga shubo basasha iyo barbarooniga aan ku huuriyey saan qadadii diyaar ay ku tahay waxaan rabaa miiska inaan igu tuso hilibka iyo bariiska qaabkiisa inuu furfur yahay inaan ii tuso indha ku aragtiin meesha aftiin zaaid waaye haye bariiskeena hadda waxaan rabaa inaan tijaabo ka qaado iyo hilibkaba qaasatan hilibka gabdho badan ay soo dhaheen baa hilibku maba ii jilcaayo waa kana maxaa jira kan hadda asasaan u kala dhaco yahay far iyo suul lagu gooyo far iyo suul haye waa kaas ilmaha yariska taasana uu jibiyo afka la u gelinaysaaba haye alaanka bacdi jilaac intee loo socdaa